ogtahay daawade filimka ishqi Ajay Devgan fargalka oo siinay ama faraantiga oo siinay Kajal Mukherjee in uu yahay faraanti hadiidahan Ajay Devgan oo ugu talagalay asman Kajal ilaa ay hadda farteeda ayuu ku jiraa oo Ajay Devgan ayaa hadiidahan u siiyay inkastoo doorkaasi uu ahaa matal laakiin haddana si dhaba ay fargalkaasi ilaa ay hadda u haystaa Kajal Mukherjee ugu dambeyntii xiriirka labadooda ka dhaxeeyay iyo jaceylkii labadooda ka dhaxeeyay waxa uu miro dhalay 1999 24 Febraayo 1999 Ajay Devgan iyo Kajal ugu dambeyntii way isguursadeen lamaanahan nolosha way ku midoobeen waxa uu u jooga wiili gabar kuwaas oo lagu kala magacaabo Nysa Devgan iyo Yog Devgan Ajay Devgan iyo Kajal gabadhooda curda ee lagu magacaabo Nysa Devgan waxay dhalatay 20 Abriil 2003 Ajay Devgan iyo Kajal wiilkooda yaraanka hana ee lagu magacaabo Yog Devgan waxa uu dhashay isna 13 Sebtembar sanadkii 2010 Kajal filimada lacagta ay ku disana waxa kamid ah inay halka filim ku disay Kajal Devgan 10 karoor waana ku dhawaad 1.34 milyan oo dollarka Mareykanka ah Kajal aabaheeda waa reer Bengali hooyadeedna waa reer Maharashtra Kajalna waxa la sheegayaa inay aad iyo aad uga hadli karto luqadda Maraathiga mise ogtahay daawada Kajal iyo aabaheeda inay kala tageen iyadoo yar kadibna Kajal waxa soo korsatay ayeeyadeeda intaasi waa Kajal iyo nolosheeda gaarka haddana aan galno Kajal markay fanka Bollywoodka ku soo biirtay iyo biladaha ay ku guuleysatay Kajal shirkadda Filmfare Awards ay ku guuleysatay 5 jeer qaybta atriishada ugu wanaagsan shantaas oo kala ah inay ku qaaday markeedii ugu horeysay filimka Dulwale Dulhania Le Jayenge atriishada ugu wanaagsan waxaana uu xigay filimka Kuch Kuch Hota Hai kaasay idna markii labaad ay qaadatay atriishada ugu wanaagsan ama Best Actress Awards waxaana uu xigay inay qaadatay filimkeedii Kabugushi Kabigam markeedii saddexaad qaybta atriishada ugu wanaagsan